Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabta ku xiran YouTube channelkeena. Maanta unsiyaan wadanaa. Maasha Allah, cuntadii maanta waa ka nasanaynaa, dhinaca caraftaan aadaynaa. Soo dhawaada asxaabteena. Haddaa hore noola joogteen like noogu qabta, haddaa nagu cusubtiin subscribe noo saara. Shayrtana waa noo muhiim, commentiga ra'yigiina nagula wadaaga. Halkan waxaan ku haysanaa 1 kiilo oo sokor ah. digsiga noogu jirto halkaana 13 geed oo unsiga kariska ka kooban. Dukaanka markaa tagtid hal karis oo unsiga isiya dhahaysaa, marka ayagaaba ku siinayaba dukaan kasta oo ka gada qalabka unsiga hal karis isiya dhahaysaa. Waxaa noo dheer kaliya biyaha rose waterka 200 mililitr raali ahaada. Marka taraawo miskiga, taraawo niilkii, cuudkii, xashkii, saabuuntii, maxaan ku rahdaaye jooska laguma badiyo, waa xabad yar aan ku darayaa. Waxaa kaloo halkaa iigu jira geeda badan, qayb aan magacooda ka siinaa ku jira, iga raali ahaada. Laakiin hal karis oo unsi isiyan dhahaa, waan wada garanayaa isha, laakiin de magacooda qayb aanan xafidin, raali ahaada. hadeer isku soo dardarsanaynaa biidnillaahi kariim. Halkaana cadaradii noogu jiro. Marka hore horta aan isku soo dardarsano bal dhinacay digsigaan aadno biidnillaahi kariim. cadaradii halkaan kusoo wada diyaarsada waa aragtaan, maasha Allah. waxaan ku darsanaynaa 1 bakeeri oo biyo ah, bakeeri weyn ah, iyo 200 mililitr ee rose waterka ahaa. asagana bakeeriga shaah lagu cabo mugiis camal oo biyo ah waaye. labada bakeeri aan ku darsanaynaa. rose waterka waxaan ka faa'iideynaa waxa waaye xoogaa unsi wuxuu yeelayaa caraf fadhida oo adag, maasha Allah ah. marka sidaa noola socda. waxaanan isugu dardaraynaa insha Allah qaybta ugu taraawo miskiga iyo taraawo niilka iyo cidida waan ugu dambeysiyaa, laakiin inta kale waxaan xashkan ugu hormarinayaa. dhirta kala hormarinteeda kaleeto macno badan ma sameynayso, kii aa ku dartaba waa kii kaleeto, maasha Allah. halkii unbay isla wada imaanayaan. hadda xashkan ku darayaa oon ugu hormarinayaa insha Allah. halka karis ee unsiga ah aniga 1 kiilo sokor aan ku karinayaa, markaasuu unsi fadhiyo caraf badan oo maasha Allah kuu noqonayaa. laakiin haddaad sokorta ka badiso sokor baa ka soo uraysa, hadhow unsiga iska jir. ha ku badina sokorta, ha kuu bato intaa istiraahdid. xabad xabadan ugu soo darayaa. markaas dhirta kala hormarinteeda macno badan ma sameynayso, waa isku wada mid. laakiin saddexdaas xoogaa caraftooda aan gadaal ka rabo, taraawo miskiga, taraawo niilka, iyo waxaan u dambeysiisanayaa cidida oo wax yar kaga darsanaya, iyadana kuma badinayo insha Allah. dabka aa ku karinayso dab dhexdhexaada oo weliba dab sare xiga ha ahaado, dab xoogaa fuul ah ha ahaado ama haay ku ah. dhirta qayb baa kuuskuusan oo u baahan in la tumo ama in la shiido, kulli sidaas diyaar uma aha, anaa soo diyaarsaday. marka sidaa ula socda asxaabteyda. maadaama 1 kiilo kaliya aan karinaynana wax yar buuba noo saarnaanaya insha Allah. unsigan unsiga madow waaye, laakiin unsi cadkana maraa raba inaan soo geliyo insha Allah. iyagana kan wuuba kasii fudud yahay, ka faa'iideysta, maasha Allah, tabaaraka Allah.
hadeer waa uu soo dhow yahay insha allah waqtigiisa noo soo dhow qofkii karin yaqaana kashaatada uunsiga waa karin yaqaanaa qofkii uunsi karin yaqaana kashaato waa karin yaqaanaa macnaha waxaa waaye waqtiga ay ka degayso saabuuntii yareed hadeer ku daray saabuunta waa mid loogu talagalay waagi hore cambar iyo adduuna la heli jiray laakiin hadeer waxaa siiray saabuuntii soo raaciyaan marka waqtiga aad kashaatada ka dejin lahayd leeba ka dejinaysaa uunsigana marka aragtay inuu isu soo ururiyey waa ka shubaysaa inuu aadkaaga adkaado oo uu dhagax kaa noqdo lama rabo hadhow uunsiga waa inuu gacanta ku jajabi karo oo aad gacanta ku burbursan karto insha allah maanta xaafadda caraftii aan qabsatay caraf aa qabsatay maasha allah annaka hawada ka haysano kiiladaas yaree la karinaayo binaaradda dhan ay carfinaysaa waxaan kusoo bilaabayaa cadarka qaybta adag ayaad ku hormarinaysaa uunsigana caraftiisa iyo qualitigiisa waxay ku xirantahay cadarada aad ku darayso marka cadarka aad ku daraysa cadarada adag ha ahaadaan marka hore cadarada daasadaan isticmaalaya hadeer aniga marka cadarada adag ha kuu ahaadaan marka aad ka dejiso ood weel ku shubanaysana insha allah cadarada ha kuu noqdaan khafiifka ah 2 cadar 3 cadar oo kuwa qaaliga ah oo khafiifka ah oo kuwaad adiga tintaada u isticmaasha ayaa ku daraysaa kadib dhalaad ku shubaysaa haddii kale carafta caaga iyo way kaa baxaysaa uunsiga kuma kaydsamayo wuxuu noqonayaa wax carafti ka baxday oo dhagax ahoo meesha kuu dhex yaalo kaa noqonayaa dhalaa lagu shubtaa lagu xirtaa saanuu diyaar ku yahay hadeer waa ka dejis mar dhow insha allah saxanka aad ku shubaysana waa inaad usii marsataa cadaraad saa u marinaysaa isaga dhan waa kaasaa soo gediyey maasha allah muddo saacada ahaan ka maqnaanayaa wixii go-yaal guriga yaallaa gab lagu siiyey waa kaasaa hadeeraan usoo noqday isagoo qaboobay gacantaydan ku haystaa waa aragtaan saasaan u burburinayaa burus iyo dhagax midna looma qaadanaya gacanta waa inuu dhag 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 ku dhihi karo oo saa ugu jajabi karo uunsiga waa aragtaan marka saasaan kusoo diyaariyey hadeer maalin dhanaan ka maqnaa maasha allah tabaarakallah wuu noo qaboobay hadeeraan dhaladiisa usoo diyaarsadaan ku shubayaa cadarada khafiifka ahaydna markaan dhalada ku shubaan ka daba geynayaa laakiin kan hadeeraan sii siinayaa dhalada sare cadarka ah marka asxaabteena soo dhawaada waa kaasaa waa idinka soo tuuray uunsigii ka faa'iideysta intii taqaanay maasha allah weeye intaan aqoonina ka faa'iideysta idin leeyahay uunsiga cadna waa noo soo gelin doonaa haddaan nagu cusubtiin subscribe noo saara haddaa hore noola joogteen like-ta noo dhaha share commentiga dhiirigelinay noo tahay asxaabteena soo dhawaada idin leenahay waa kaa waashidana carafta kasoo kacayso waa yaabisaa maasha allah tabaarakallah uunsigana qualitigiisa waxay ku xiran tahay cadarka aad ku darta iyo sida aad sokorta ugu yarayso maasha allah soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu